وأنا قبل لي كمال ينك الإسكويستين عوان كذا فيسبوك حتى ولا قدرتي الصومالي سردوم واي وكان قف كرا وماشي أنا قصو فير كرا يد عيال كذا أدقيدي هو وحيورن ماشي أنا لود ليه وأنا هايدي ما شاء الله عيال كذا وهالكان يقولين إي حاجة كذا حتى عيالك أبود عيالك وكوانها أنا لكن كم الدنباب كرنا وأسقبان وأسفرين لملا وريوسو لكن إن عيال لي ضايبين معهن وطنها حاجيدي حاجة كذي هي حاجة كذي كلت ولا بدي حاجة سكويزت ما شاء الله الله بدنا بسكويزت وأنا عيالك قاركم مده أكوانها أنا أيدنا حاجة يهور لا إنكرنا كنا مسكين إلاك ومقنا أدقى daawadayaal waxa baraha bulshada la keenay hadda carruurtii ay dhashay hani taasoo maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada si xooga ugu baahay kadib markii xaajigeedii hore hani soo hadlay arrinkana uu fashiliyay saana loo xaqiijiyay hani waxay dhashay 5 carruur ah waxaanay joogaan waddanka Sweden daawadayaal muuqaalo xiiso badan iyo sidoo kale codad sir oo laga hayo Kamaal iyo hani ورهانتي قبل أو سحري تي في كروسوب تفضل رقم سبسكرايب صار قبل القناة السعيدي سو قارن مقالة حساب بدنا هلك سوق لنشيدو كلا داود يا المقال كلا صار لايك تداود المقال كوحكا عونسا إنه فيديو ونميل فوق قارن ما هالسنة داود يا هذا برا بالشدة لكان عرورتها دشة هني كد مركي معلميه قدام بيلسكو استي هني تاسو كمال عبدول يسيدو كلا حاج بيور برا بالشدة فيديو سكو مرنيا kaasoo gabyahaanna soo hadlay xaajkii hore hani daawadayaal sidoo kale gabadh ay dhashay hani oo sheegtay inay hooyadeed tahay balse ay inkirtay markii ay Kamaal Cabdul u tagtay daawadayaal sidoo kale waxaa naloo sheegay in Kamaal Cabdul uu sixray gabadha hani taasoo gabyahaan maalmihii ugu dambeeyay kula sugnayd waddanka Turkiga haddaba daawadayaal maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada ayaa saameyn ku reebeen hani iyo sidoo kale Kamaal Cabdul iyagoo gabyahaan dadyo badan oo aan ay arrinkan ka soo hadleen siyaabo kala gedisan arrinka looga hadlayay haddaba daawadayaal carruurta idin muuqata waa carruurtii hani waana 5 qof oo raantii daawadayaal jooga waddanka Sweden haddaba daawadayaal carruurta bar kamida oo imika haatan dadka la hadlaya ayaa cadeeyay in gabyahaanba ay hooyadood tahay balse ay inkirtay kadib markii xaajigii hore iyo sidoo kale hani ay isku dhaceen hagaana uga soo hayaantay si ay isku gursadaan Kamaal Cabdul walow safurnin jirin oo xaajigii hore uu sheegay inaanu safurnin hani bal haddaba maalmihii ugu dambeeyay idin muuqaalo iyo sidoo kale daawadayaal codad sir oo baraha bulshada maraya Kamaal Cabdul oo arrinkan ka dhidhiyay kadib markii uu ka gaabsaday arrinkani ka hor intaan si muuqaaladan ay baahin daawadayaal loo sheegay in gabyahaanba gabadhan la qabo balse daawadayaal ku dhagaadeegay inuu sii daayo hani bal haddaba daawadayaal waxay diyahaynaa waraysi la siiyey xaajigii hore oo la yeeshay laka media baro iyo sidoo kale carruurteedii u barhadlayaan iyo codad siro Kamaal Cabdul gabyahaan baa laga hayo maxaa Kamaalow hooyada maxaa lahaa hooyadii waaye gabarta naagtana la joogtid anana weyn markaas wuxuu dhahay curudha marka fiidiyoosha waxaan hooyada ka duubtay meesha ma ka bixi kartaa maadaama hooyaday naag la qabo iyo ciyaal ay leedahay inta ceebtan ugu badanin marka muxuu isoo qoray maxaa lahaa ani qofka ana qabo ana aqaano beentan iga jooji beena shiigusa maxaa beema shiiguye qof oo ku soo wici karto meeqa qof ku soo qorto ku dhahday naagta waa naqaana ciyaal leedahay marka wuxuu dhahay maxaa lahaa qofka ku soo diray aabaha ku soo diray waa ugahay hanina ma ku dhalin marka xada hani way dhashay adina wax ma ku ogid hadda qof barato waay hooyadeena way tahay hooyadii markay tahayna ana og hooyadeena tahay maxaa lahaa bavisiyaal badanna waa haya cadayba badan marka waa blokeeyay miga telefoonka markaas miga qabana block isagana waxa ay yihiin Kamaal
aabihiis iyo ehelkiisi maadaama afgooy ay degan yihiin nasiib wanaag rag saaxiibaday ah iska soo fariisaday oo reer afgooy ah iska fariis reer afgooy isla markiiba gartay kamaal aabihiisa layla hadashiyey lambarkiisa laysiiyo layla hadashiyey waa gartay oo adigana rag ku garanaya haa aniga rag yaqaan asigaan rag yaqaana waa gartay arrinkan u sheegay kamaal aabihiis madax horta gacmaha saartay dadkii dhan fajacisa ku noqotay arrinkaasun dhammaanteen marka hore fajacisa nagu noqday markaan kiliibka arrinaba qof walba oo na yaqaan ama ehelka macnaha wuxuu noqday qof oo dismoraal u noqday wax aan qaado weyn nala noqotay okay ninka meherina marka aan u noqdo meherkaan rabaa inaan u noqdo meherka marka aan fiiriyey waxa fadhiya meeshaas nin aan sida adiga cimraana ku aqaan ana aqaan isku xaafadaha jirnay sidaynu isku xaafada u ahayn haa isku ahayn waa gartay waliba muddo 30 sano ku dhow aan ninkaas isku xaafadna anagoo dhalinyarahan isku xaafaday waa nin laga yaqaan xaafada aan deganaa ee soos axmed nuur hayna la yiraa axmed nuur hayna haa waa gartay sheekh wax meeriya dhinaciisa waxaan ka arkay axmed nuur oo fadhiya sheekha markuu meerka jeediyahay ana kilibkaan fiirsaday moogta waa sax sheekhu markuu meerka jeediyahay afar waxyaalada gabadha meerkeedu ku hagaaga midaan uga dan lahayn waxaa fadhiya weligeedii ha la yiraahdo muumin maxamed waana aabaheed waa qaanaa waa sodogaa macnaha waa sodogay muumin maxamed meesha ugama jeedo ninka fadhiya marka leeyahay waa axmed nuur axmed nuura aabbaa oo dhiibaya gabadha haniyeed waa yaabnaan taasaan kula siyaab dada waxay leeyahay marka gabadha aabaheedaaba dhiibaa fadhiya kiliibka xataa dib ha loo fiiriyo shiiqa iyo kiliibka dhan hadalku waa wada kiliir inta uu socdo marka axmed nuur ninka la yiraahdo ee muumin maxamed iska dhigay oo hadlaana muusigaa la saaray u fiirsada kiliibka xataa dib ha loo fiiriyo codka axmed nuur ma la maqlaayo inta kale walaa shiiqa walaa qof walba waa la maqlaa ma fahan axmed nuurka naftigiisaan contacta la sameeyey waa axmed nuur aan aqaan hadda nambarkiisaan hayay 2017 markaa xamar tegayo xataa i yimid aan is aragnay arrinkan dhalinyaradii kale xataa xanaaqda xaafada ahayd waa la wacay ala kulli xaal odagii wuxuu wacay axmed nuur lala hadashiya la yiri waa soo maha ninka hani aabaheed haa waa kan la hadal haye gabadha adiga soo nama siin astaghfirullah waxaan kaa soo hilmaamay cidda marka kamaal iyo hooyadiis iyo dadkiisa ehelkiisa axmed nuur waxay ugu tageen xamara loogu tago gabadha laga doontaba markii hore kabacda odaga inta sheekooyinka sii sheegaya odaga kamaal dhalo aad u fiican way maasha allah waan ugu dhacdo yiri inaad yartano xamaraan tagnay gabadhaan weydiisano waana la soo siiyey annaga markaas waxaan dhahnaa meherka haddaan reer afgooyanahay wiilka gurigiisoo ka dhaca imaa guriga marka adi noo imaa asaga laba noo kale noo yimi laba cunoo kale hor usoo wata marka ehelkiiba saas uga dhigaa micnaha hani ehelkeedi hadde hani ehelkeedu aabaheed muumin maxamed walaalkeed iyada la dhashay aad jooga xamar jooga hooyadeed makashee caliya xamar joogta markaas u fiirso cidaanu xamar ee gabadha ka dooneen axmed nuur sii hooye habeedii hooyadeedna waa joogeen xaqiiqda marka la rabo waay intaas anigu waxaan u aamusnay oo waxaan walaacan iyo balaayadan iyo waxaan kale ordaa waa arkay laakiin ma jecel inaan mar walba micnaha